ururka haweenka ee jaaliyadda magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa ka hadlay muddooyinka ugu dambeeyay qaar kamid ah haweenka Soomaaliyeed oo laga qaadanayo caruurtooda taasi oo ku soo badanaysay dalka Jarmalka ayaa la madakar ayaa nooga soo warramay wadankaasi مسؤولين كترسن جالية هواينكا مقالة برلين dalka Jarmalka ayaa kulan ay iskugu yimaadeen waxa ay ka hadleen waxa uu qabsoomay iyo waxa uu qorsheysan ka jaaliyad ahaan gudoomiyaha jaaliyada haweenka ee Soomaalida ee magaalada Berlin Sahra Maxamed ayaa waxay tiri waxaan ka tirsanahay jaaliyada dumarka Soomaaliyeed ee Jarmalka gaar ahaan caasimadda Berlin waxa loo aasaasay jaaliyadan waxa kamid ah dhibaatooyinka ee Soomaalida inta degan gaar ahaan ay ku haysato dadka maaragtay aan luqada aqoonin ama aan maaragtay dhibaatooyin badan haysta xagga warqadaha wax walba marka hore ma lahayn wax community ah ma aan qabin waxa kale oo iyaduna halkaasi ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka ee jaaliyada Berlin ee dalka Jarmalka Kawsar Umar ayaa baaq u dirtay haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jarmalka oo qaar kamid ah muddooyinkii ugu dambeeyay laga qaadayay caruurta oo hore aan u jirin dalka Jarmalka waxa sababta koobaad ee looga qaadanaya wax weeyaan in ay hooyadu ka soo bixi weydo mas'uuliyadda ilmaheeda maadaama ayada caruurtii looga tagay hayso ha noqoto maxay tahay dayacnaan mas'uuliyadda oo ka tara badatay ama dayacnaan kale oo xag hooyada ka timkow iyo dacwad labada dhaxdooda ka timaada hooyadii aabo iyaga oo ficiltamay inuu midba mid dacweeyo kadib labadoodii caruurta laga dhax qaado idinkoo danta gaar ah idinkoo ay leedin ama isku ficiltamaysan ama waxa idinka ka dhax dhacay waxaad ku ilowdaan ninkuna ha ku ilaabo ubadkiisa naagtuna ha ku ilowdo ubadkeeda waxa kale noo qorsheysan saan u barihayn caruurta yar ee Soomaalida ah afkoodii hooyo iyo diinta islaamka oo quraanku ugu horeeyay insha Allah hadii la hayraado waxa kaliya laga hortagi kalaan anigu aan kala ahayn in siinayana waa inuu ubadkiina wada ilaashataan naagtuna inay ninka dacweyn ninkuna aanu naagta dacweynin naagtuna inay khayrkeeda ay saarto maxay tahay culayska oo ay caruurteeda waqti siiso waxna waan qabanay wax badan oo inoo qorsheysan insha Allah inaanu qabano waxaan doonaynaa inaanu qabano wax kamid ah sida maxay tahay dumarka ay caruurooda la doonayay in laga qaato inaan ka hortagno ama laga qaatayba dadka maxay tahay looyarada u baahan afka garanayna doonayay inay maxay tahay looyarka laga caawiyo hadii turjubaan noqoto hadii ay noqoto maxay tahay qofku guri oo kale haduu u baahan yahay in guriga laga caawiyo sidii aan isugu keeni lahayn aan u mudayn lahayn isugu xidhi lahayn lambar 1 bay noo tahay waxa kale noo qorsheysan saan u barihayn caruurta yar ee Soomaalida ah afkoodii hooyo iyo diinta islaamka oo quraanku ugu horeeyay insha Allah hadii la hayraado gabagabadiina waxa halkaasi ka hadashay Muna Cali oo kamid ah guddiga sare ee jaaliyada haweenka ee magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa waxay ku dheeraatay hadalla ku taxalluqa munaasabadaasi waxayna ka warantay muhiimadda ay u leedahay jaaliyadani haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Berlin iyo nawaaxigeeda waxaan go'aan gaarnay in aan sameysano jaaliyad anaga jaaliyad ma lahayn jaaliyad nagama soo horreeynin markii hore toodba anaga kaligeena isdabari jirnay wax noo turjubaana ma haysanin marka hadda go'aan waxaan gaarnay dhibkaan soo marnay inayna dadkaan aysan soo marin ay sharciga la raadiyo waxaa jira dumarka Soomaaliyeed marka iyo ragga ay iskursadaan ayagoo isqabaan caruurtii waxay dalbadaan wax la yiraahdo unterhalti waxa waaye lacagta ninka inuu dhiibo ay tahay ay dalbadaan waxaan dhihi lahaa dumarka Soomaaliyeed ha joojiyaan sababtoo ah waxay dhibaato uga imaanaysaa ninkeeda bari ka maalin hadduu baasaboorka Jarmalka uu doonto lacagtaas inuu gudo waayo waana lacag tiro badan ilaa cunuga waxaa la siinayaa 18 uu ka gaarayo ma aha inaad fiirisid lacagta maxaa iga galay ninkan wax iiga jira ma laha inaad tiraadiin ma aha inaad dalbatiin ma aha kulligan Soomaaliyaan nahay inaan naxariista la badiyo iska wanaagsan tahay bacdama ninkaaga uu kula nool yahay inaad lacag gooniya aduuganta abtiga ka dalbatid waxaan u arkaa arrin qalada dumarow iska ilaaliya taas teeda kale markasta dooda waxay imaataa way anaga aan u heli weynay warqadda dhalashada oo originalka oo Jarmalka la siiyo waxaana lagu siinayay waxay tahay anaga haddaan Soomaali nahay Soomaalinimadeena ma cadeysno marka isdhiibaysiin baasaboor Soomaaliya isku badhiibtiin waxaad isku dhibtiin aniga Soomaaliyaan ahay waxaan arkaa horta familiyaal badan oo ninka uu shaqeeyo ee leeyahay lacagti waa la goostay horta lacagta mid aan la goosanay ninka taajirka iyo ninka faqriga aan iskaga mid nahay waa kindergartiga lama gooyo laakiin ninkaaga marka aad shaqeeyo oo lacagtiina aad soo qaadatiin guri ijaarna aad ku jirtiin waxa lacag ka dalban kartaa Wohnengeld marka ka dalbatidna wasaaradda caruurta qaabilsan haddana waxa ka dalban kartaa wax la yiraahdo Kinderzuschlag
waxa waaye baro cunug waxaa la siiyaa 160 saddex ilmood markaa haysta 420 ku soo dhaceyso kindergartiga waxay xisaabayaan lacagta guriga ijaarkiisa xisaabayaan muddo sanaday waxa soconayaan waxa waaye uma baahnid inaad maxaan ku sheegaa tiraadin job centerkii lacagta waa naga goostay ninkii saan waay inaad ilmihiini inaad kala degtiin adiga ninkaaga inaad kala degtiin xaraan aad ku korisiin aniga waa niga la talin lahaa ilmahaaga xalaal ku koriya lacagahaas jirto la dalbada waa ayaan la mudakar RTN TV magaalada Berlin ee caasimadda dalka Jarmalka.